waxaanu ku bilaabaynaa qofka su'aasha qabo gacanta ayuu taagahayaa gabdhaha ixsaan ee socda ayaa maaragtay u geynaya mikrofoonka طيب بالله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال أوها الرئيسو أنا ما أنت إذا سعتاهم في ليا شيخ النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا قبور تقبلوه إن زيارتان اتباع الجنائز يفرق يقول حيث محيطة هاي زيارة القبور مركلته ما أنت ونيروبي تشوفنا ما دام الزيارة دي سجأت كاتي ما بنانت هاي قبله هدي أي حارنت هاي ما بنانت هاي إن أي راعضو جنازة أيضا نحقلين المخالطة لكن بنية الزيارة دتك أي وهشان يسمون راعي كرتة سؤال شلوات حويان بابورتي بامانتا قيبة كمية وحلو استعمالها هب عروض التجارة مثلا دكدو كلام وحنقول هاي ديل بنك هايستا طبعا بابور بنقضنا إياه سأي دكد ألافت أو سوق هذا يوجيان بابور تانوع تجاري أنو استعماله الزكاة ما كو واجبته مساء بابور وحدوني بها هذا كما واجبته لا بدأ سؤال بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه إنه ولي ذلك والقادر عليه أنت كذب سؤال شهرين oo ku saabsan saan u fahmay dumarku janaasada ma raaci karaan jawaabtu waxa way haddii aan markaa laga baqaynin in ay markay tagaan qubuuraha ama xabaalaha inay wax shareecada khilaafsan ku kacaan maadaama dumarku iska qalbi jilicsan yihiin markay qubuuraha tagaan baroor iyo oohin iyo maryo la jeexjeexa iyo sabir darro inay muujiyaan haddaan laga baqaynin way bannaan tahay inay aaska ka qayb galaan maxaa yeelay Ummu Catiya saxaabiyaddii waa tii lahayd nuhiina can itibaaci aljanaa'izi walam yuczam calayna janaasada inaan raacniyo aaska ayaana laga reebay laakiinna laguma adkaynin marka laguma adkayn bimacnaa waxa weeye laasimna lagagama dhigin inaanaan raacin bimacnaa ama karaaha ku jirta ama way iska bannaan tahay haddiise laga baqayo meesha inay dumarku ay waxaan habboonayn ay ku kacaan markaasay noqonaysaa waxaan bannaanayn su-aasha labaad jawaabteedu waxa weeye gaadiidka la isticmaalo oo loo isticmaalo aan markaasi iib u oolin ama muxuu ahay waa la rartaa ama waa la kiraystaa ama gaadiid ahaan baa loo isticmaalaa sika laguma laha baabuurka laf ahaantiisa laakiin hadduu iib u yaallo oo isaga la sii gadayo oo ruux uu ka ganacsanayo gawaadhidaa iibka u taalaayay badeeco weeye markaa badeecada dukaankaoo kale la midta markii sanad soo wareego ayaa gawaadhida la qiimaynayaa kadibna laga sakaynaya laakiin gawaadhida kuu shaqaysa ama tareelayaal shaqeeya ama kuwa aad alaab ku qaadato ama kuwa aad kiraysato guriga kuu kiraysan warshadda shaqaynaysa ee markaa lafahooda aan iibka u oolin saka laguma laha iyaga laf ahaantooda haddii wax ka soo baxaan iyo lacagta ka soo baxda ee laga helo hadday dhiganto sanad u soo wareego isla markaana ay gaadho qadarkii sakadu ku waajibaysa nisaabkii markaasaa saka lagu yeelanaya laakiin gawaadhida laf ahaantooda saka laguma laha wallahu aclam بسم الله waa mahadsantahay sheekheena Allah barakee su'aasha waxay tahay waxaa nala dhashay wiil
labaatan sano ayuu Mareykanka jiraa nalama soo hadlo asigana wuu shaqaystaa waa qof nool oo maxay ahayd noloshiisa aan ognahay inuu nool yahay laakiin annaga aan soo xiriirinin aan nala soo hadlin sidaas darteed aabaheen wuu dhintay hanti badan ayuuna ka dhintay wiilkii aan nala soo hadlayn oo aabahey inuu dhintay inuu nool yahay midna aanan ogeyn maxaan sameynaa ma dhaxli karnaa mise asigaan sugaynaa dhaxalka wax ma ku leeyahay ها dhaxalka wax buu ku leeyahay dhaxalku wuxuu ku xidhan yahay sababtii ruuxu dhaxalka ku yeelan lahaa in laga helo sababtu ama waa guur bay ku timaadaa oo nin iyo xaaskii ama sababtu waxay ku timaadaa dhalashay ku timaadaa oo ama waa waalid wax dhalay ama waa ilmo la dhalay ama wada dhalashay ku timaadaa oo muxuu ahay walaalo iyo adeero iyo ilmo adeero haddii sababtii laga helo ruuxu dhaxalka waa yeelanaya waxa dhaxalka u diidi kara waa asbaab yar oo shareecadu sheegtay inuu maalan gaaloobo inuu wax dilo oo ruuxii uu dhaxalkiisa lahaa laftiisuba dilo haddaan asbaabtii dhaxalka u diidaysay la helin aabba ma soo xidhiidhin jirin iyo laba soo xidhiidhin jirin iyo caasi buu noqday iyo waalidkii buu gooyey midna u diidi mayso inuu dhaxalka wax ku yeesho sidaas daraaddeed dhaxalkiisa wuu leeyahay wixii isaga ka khaldamay oo waalidka uu ku sameeyey ama xuquuqdii waalidka uu dayacay ama xuquuqdii qaraabada uu dayacay isaga ilaahay bay ka dhaxaysaa ilaahay baa taa kala xisaabtamay laakiin uma diidayso inuu dhaxalkiisii qaato saas daraaddeed dhaxalkiisa wuu leeyahay waxaana keenaysa in la dhalay ma aha inuu baari noqday ma aha inuu waalidka xidhiidhiyeyna ma aha inuu waalidka u roonaana ma aha dhaxalka waxaa keenaya inuu yahay ilmo la dhalay oo haddana muslim ah intaaba haddii uu leeyahay dhaxalka wuu leeyahay lagamana qadin karo wallahu aclam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ وحرجينا أنا في عنتها سؤال شيء وحواي جبر ورير له تهريبتي أيضا نين كذا أوجين مركي ودمدا استكتينا وحيد هذاي وحاروا عينا فسقه نين كودي إنه فراء وحيد هذا مسجد تجا وايس فسقة يا جبر أسحقهم كذا محون قنكرة asal ahaan haweenayda la qabo inay iska tagtood iska tahriibto iyadoo ninkeedii aan ka idan qaadanin iyadoo tahriibkuba si ahaantiisa uusan fiicnayn oo wax munaasiba uusan ahayn haddana haweenay la qabo oo nin leh iyadoo ninkeedii uusan u oggolaanin inay iska taqado iska tahriibto waa dembi weyn waa caasiyad waay bal waa naashizo waay naashizo adigoo ah oo sidaa ku tegay oo tahriib galay oo ninkaagii ka tegay oo adigu khaladka aad leedahay haddana in la yidhaahdo xaq baad u leedahay inaad isfasaqdo sax maaha fasaqu wuxuu ku yimaadaa haweenayda in laga gardaran yahay inay xaqeedii weydo inay xuquuqdeedii weydo inay biilkii weydo inay masruufkii weydo inay marashadii weydo inay ninka ka weydo xuquuqdii gogosha markay xuquuqdeedii weydo oo ay furitaan codsato oo uu furi waayo markaasay maxkamad iyo fasaq tegaysa laakiin haweeney iyadu gardaran oo ninka xaqiisa ku tumatay oo iska dhaqaaqday oo intaasoo jid martay haddana haddaadii fureedooda waa isfasaqayaa fasaq qaabkaa kuma yimaado laba mid waaye ama waa inay ku qanciso inuu furo ama waa inay ka wada hadlaan wax la yidhaahdo khuluca khulucu waxa weeye waa midkaan u naqaano dalqadaha kale iibsigooda oo ay ku tidhaahdo niyahow waxbaan kuu celinayaa ama waxbaan ku siinayaa iska kay fur taa khuluc baa la dhahaa jidkaasi waa u furan yahay oo raalli ay isaga noqdaan jidka kale u furanna si caadiya inuu u furo waayo
laakiin jid saddexaad oo adoo khaladka iska leh haddana shareecadu ku siin mayso inaad awood iyo xoog aad xadhigga ku goyso oo aad xadhigga jarto shareecadu ku siin mayso laanna adaa daalima adaa khalad kale markan adaa gardaran marka lagu siin maayo in lagu yidhaahdo waxaad doonta sameeyo isfasaq maaha fasaqu asbaab baa keenta asbaabtiisana ka mid ma aha inay haweenaydu ninka ka gacan baxdo waxaase la samayn karaa sulux baa la samayn karaa heshiis dhexdiinna baa jiri kara si uun kaleeta wax loo farsamayn karaa wallahu aclam السلام عليكم شيخ وحارة وأنا كويديو والدكي أو دنتي مرول بحلاسو بيا حس أو وقت قاد دنتنا لجو أديو سحمي عرنتاس يقول ولوين كلا ده يو هلا أقري والد كلوني يستيدت كدنتي مدا السحمية سؤال شلوات وحاوى أنا اللي جروا زكاة الفطر أنا إسكبحيو هدا إلو أو صلاة كدي بقى حسوستو حكم كي محون قناة أنا مثلا waxa xuska la yiraahdo oo loo sameeyo dadka dhintay waqtigay dhinteen lagu aadiyo wax sugan ma aha wax nabigeena laga hayo ma sallallahu alayhi wasallam wax saxaabadiisi laga hayana ma wax ummadii saddexdii qarni ee qiimaha lahayd ay yaqaaneen ma wax daliil loo hayana ma sidaas daraadeed waa bidco shariicada khilaafsan nabigeennuna wuxuu sallallahu alayhi wasallam bidcooyinka dib laga keeni doono iska jira hayla waa baadi buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam diinteennu waxay dhameystirantay nabi maxamed oo nool sallallahu alayhi wasallam al-yawma akmaltu lakum diinakum diin dhameystiran buu nabi maxamed ka tagay sallallahu alayhi wasallam khayr ma jiro aan u baahannahay ilaa uu ina tusay shar ma jiro in la inooga diga aan u baahnaa ilaa uu inooga digay sidaas daraadeed wax kala dhiman oo intay dad dib ka yimaadaan diinta ku soo daraan uma baahna diintu meel wax lagaga soo darana kama banaana saas daraadeed xuska iyo agaska iyo ruux markuu dhintay waxaan la sameeyay Soomaalida dhaqanka u ah waa waxaan meel lagu haynin xataa kutubtii wadaadadeenu akhrin jireen laguma hayo kutubtii fiqiga ahayd xataa laguma hayo xadiis laguma hayo quraan laguma hayo waxaas marka waa wax bidcooyin oo dhaqan ah oo meel u ka la garanaynin waa in la iska daayo haddii la doonayo dadka dhintay waalidiinta in wax loo bixiyo iyadoo waqti lagu xidhin wax loo sadaqeeyo xilligaad u xishaba waalidka wax u sadaqee lacagta u sadaqee raashinka u sadaqee xoolaha nool u sadaqee yaani wax way sadaqada bixi ula niyood ceelka u qod masaakiinta wax sii sadaqadu waalidka way gaari dadka dhintay way gaari laakiin in waqtina lagu xadido magacna loo yeelo xoolana la qalo agas la yiraahdo xus la yiraahdo midaasi bidcawa shariicada ma waafaqsana xoolahana waa xoolo yaani dayacmaya kii dhintayna gaari maayo meel cidlay ku baxeen dadka sameynayana inay dambi iyo ay cuquubo kala kulmaan mooye ajir ka heli maayaan qodobkaasi waa qodobka labaad dadka dhintay quraanka loo akhriyo ma gaadhaya mise gaadhi maayo waa mas'ala khilaafiye waa ama qul huwa allah noqdo ama quraan kale ha noqdo waxaana isku khilaafay mas'aladaas culimadii salafka qaar waxay yiraahdeen way iska banaantay ha loo akhriyo qaarna waxay yiraahdeen mas'aladu mar hadayna daliil lahayn oo xadiis cad ama aayad quraan ku soo arooray uusan jirin wa ficlan waana saano ma jiro wixii kale soo arooray ha lagu gaabsado sadaqada ha lagu gaabsado xajka in hadii soon lagu laga soomo laga xajiyo kuwaas daliil leh laakiin quraan la akhriyo meyd loo akhriyo waxay leeyihiin daliil khaas looma hayo waliina waxay leeyihiin ma waxyaalaha kale khayrka sugnaaday bay la mid tahay looga qiyaas qaato masaladaasi marka mas'ala khilaafiye quraanku ma gaadhaya dadkii dhintay ma loo akhrin kara mise loo akhrin maayo laakiin waxa la hayaa ducadii baa la hayaa loo duceeyo sadaqadii baa la hayaa xajka laga soo xajinaya daliil khaas leh qurbaadka iyo daacaadkaas waxay leeyihiin daliil khaas ah oo ku tusaya cidii loo sameeyo inuu gaadhayo insha Allah ta'ala wallahu a'lam
sakaatulfitriga haddaad halmaanto oo wakhtigii salaada la tukado salaaddii ciidda ilaa inay ka hormartay ahayd sakaatulfitrigu haddaad halmaanto mar alla markaad xusatay ugu horraysa baad bixini laanna waxa weeye allah tabaaraka wa tacaala ummadda nebi moxamed sal alla alay wasalam wuxuu ka kor yeelay oo ka cafiyey wixii halmaan u geeyo ama ismoodsiis iyo khalad uga dhaca marka halmaan baa kuu geeyey wakhtigii baad kadib dhigtay wakhtiga ugu horreeyaad xusuusiso waa inaad bixiso sakaatulfitriga oo aad masaakiinta siiso wallahu aclam gabdhaha waxyar waxaan ka raaligelinayaa insha allah waan idiin imaanaynaa iska yara dulqaad sheekh dhowr su-aalo isku yara dhadhow maamo waxay leedahay gabdhahaygu rag bay shukaansadaan xoolay siiyaan xoolahaasi ama wax iigu soo gadaan ama gurigii keenaan marka xoolahaasi diintu maxay ka qabtaa gabadh kale waxay leedahay iyadana ninkaan is-shukansanaynay wuxuu ii ballanqaaday cimro inuu i geynayo ballanqaadkaasi asaga ka waran midda saddexaad oo isla qoysaska ku saabsan aan ku dhammeeyo waxay leedahay ninaan isqabnay baan kala tagnay sawirrihii aan isla geli jiray inuu sii haysto ama aniga aan sii haysto diintu ma ku bannaan tahay midda u dambaysa waa howlaha hadda taagan waay midda u dambaysa waxa weeye aan ka bilaabee nin markaad isu bannaanaydeen aad sawirro wada geli jirteen haddaad xaaraan kala noqoteen ajnabi buu kaa yahay mar haddaad ajnabi kala noqoteenna sawirkiisuna waa ka xaaraan sawirkaaguna waa ka xaaraan sidaas daraaddeed asagana tirtirdhe adiguna iska tirtir raggaa kale ee badan ee magaalada joogaay iskama xigtaan waa unbaad isu bannaanaan jirteen laakiin hadda ajnabi baad kala tihin nin ajnabiya waxa kaaga bannaan baa isagana kaaga bannaan wuxuu kaga duwan yahay haba yaraatee ma jirto masalada labaad gabdhahaaga la shukaansado wixii la siiyo shukaansiga lagu siiya ma bannaaya hadduusan shukaansiga edabdarra la soconin wixii lagu siiya dhib ma leh laakiin waxaan ogahay oo xaqiiqo ah shukaansiga iyo haasaawaha maanta jiraay edabdarro badan baa la socota dhaqan xumo fara badan baa la socota ballanqaadiyo beenaa la socota dhallinyaradu waxay gaadhayaan heer ayaga oo aan isu bannaanayn inay gaadhaan xataa nin iyo xaaskiisa ama qaabkay u wada hadlaan ama qaabkay isula joogaan inay isu wada hadlaan isulana joogaan ayagoo xaaraan kala ah oon isu mehersanin marka waxa sidaasoo kale ku yimaada waa wax xadgudub sharciya ku yimid xalaalna maaha mas'alo kale weeye shukaansiga shareecadu qabtiyo hasaawaha guurka shareecadu qabtaay qaabkan hadda socda ma aha qaabkani waa anshaxumo iyo dhaqan xumo waaye waxaan marka ku dhihi lahaa hooyada su-aasha soo qortay gabdhahaaga jidka aad sheegaysiiyo shukaansigaasi socda ee qaabkaa hadda u socdaay sida qaalibka ah waxaa ka dambaysa waxaan la mahadin doonin waana midda keentay gabdho fara badan in gabadhnimadoodii ay waayaan anshaxumadaasay ka bilaaban kadibna xumaan bay u gudbi gabdhahaaga waani ninka wax rabo oo guur ka raba tartiibtooda haddii la wada hadlo oo laysla oggolaado guur laysla oggolaado shukaansiyo sheeko dheer ma sii jirtee ama gabdhaha ha guursado ama bannaanka ha ka maro waa masalada labaad ee hooyada waxaan ku baraarujinaya hooyooyinka la midka ah haddaad raggaa lacag ka gurataan ood lacagtooda urursataan oo gabdhihiinnu idiin keenaan berri markii la isqabsado lacagtaa meeshaad ka gudi lahaydna ku talagal yaa soomaalidu waxay yidhahdeen xoolo rag feedhana ka xisaabsan may dhihi jire mise farana ka xisaabsan in badan bayna soo martay gabadh marxaladaa hore shukaansiga lacaga badan inta la siiyey
markii la isfahmi waayey loo soo fadhiisto oo yidhi iska bixiya lacagti kadibna ay noqotay in culimadii iyo qaraabadii iyo la fadhiisiyo la yidhaahdo lacagtii seen ku bixinaa marka waxaasi waxyaalo munaasiba ma aha gaar ahaan duruufta hadda jirtay say wax u socdaan gabdhaha marka wax way akhlaaqdooda ha la ilaaliyo iyaguna hay is ilaaliyeen guurka ilaahay baa haya laakiin dhowrsoonidii baa luntay akhlaaqdii baa luntay muxuu ahaay xumaan badan baa dhacaysa waxayna ku dhimaanaysaa qaabkan hadda laga warramayo shukaansiga lagu tilmaamay su'aasha saddexaad maxay iyadana sidii oo kale waa nin aadan isqabinba hadduu cumro kaa bixiyo oo uu cumrada kaa bixiyo soo cumraysato asal ahaan dhib ma laha laakiin masaladaad ku talageli waxa weeye markuu cumro kaa bixinayo ballanqaad buu kaa haystaa soo maa asagoon ballanqaad kaa helin inaad guursanayso waxba ku siin maayo ballanqaadkaasi inta uu jirana waa inuusan xumaan sabab u noqonin oo shareecada khilaafin marka u dambaysana waa inaadan ballantii ka bixin laanna ballan aad xoolo ku qaadatay haddana haddaad ka baxdo waa inaad xoolihii celiso ugu yaraan dumar badan baana sidaa hadda ku shaqaystoon ogsoonnahay dumar badan baa ama gabdhaha u badan hooyooyinkiiyo iyagu inta badan waa dad dhowrsoon laakiin gabdhaha waayahan kacay oo 2020 iyo wixii la mid ah yacni wax weeyaan 5 nin 6 nin bay la shukaansi kula jirtaa mid walbana waxoogageeday ka urursataa lixda mid walba $100 buu bishii soo diraa gabadhan xariifadda ah marka la gaadho bisha dhammaadkeeda $600 bay aayar qaadataa oo ma 6 nin bay guursan doontaa midaas marka waa dhaqan xumo socoto waaye waxyaalahaasi waxaad u baahan tihiin in la iska daayo guurku dariiq buu leeyahay shukaansiga shareecadu ogolaatay jid buu leeyahay wixii khilaafsanna waa waxaan la mahadin doonin caaqibadiisa wallahu aclam sheekh inta badan maanta anay ileeyihiin sheekha weydii gabdhaha waxay leeyihiin maadaama lagu jiro bishii shuwaal 6dii shuwaal la soomayey iyo waajibkiina lagu lahaa haddaan hal niyad ku wada soonno ma naga gudaya gabadha kale waxay leedahay iyadna wadaadkaygiibaa waxuu yidhi waxaan kugu guursaday adigoo gabadh ahayn xilli aan wiil dhalay kadib marka dagaalkanagu batay kadib haddana wuu ii soo noqdo raalli ahoo buu yidhi ninkaasi xukunkiisa sharciga ah maxaa weeyaan hadalkaa uu i dhahay aanan ahayn hadda isku soo noqoshadooda iyo furiinkooda midda saddexaad ayadana waxay tidhi bal sheekh labadaa ka jawaab insha allah su-aasha hore ramadaankii maalmihii idinka tegey dabcan wuxuu ku tegayo ama waa caadadii oo idinkugu dhacday ama waad nuujinaysay ama uur baad lahayd ama matalan safar baad ahayd ramadaankii wixii kaa tegey iyo 6da shawaal qallaheedu isma laha 6da shawaal qallaheedu si madax bannaan aad u qallayso waay waxaan u jeedaa 6da shawaal soonkeeda dhiila soonkeeda sunnada ah iyo maalmihii qallahee lagugu lahaa way kala madax bannaan yihiin leanna nabigeennu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi ruuxii ramadaan sooma kadibna 6 beri oo shawaala ku dara sanadkoo dhan isagoo toomay buu la mid yahay riwaayo kale waxay leedahay maxaa yeelay xasanada halkii khayr ah 10 buu u dhigmaa marka bisha sanadku waa 12 bilood ramadaan haddaad soontay 10 bilood buu u dhigmaa sanadkii waxaa ka laaban 2 bilood 2 bilood markaad 6 beri soonto oo 10 lagu dhufto waa 60 beri waa 2 bilood marka 60 beri ee shawaalka ah waxay dhammaystirayaan bishii ramadaan oo dhammaystiran oo sanad u dhiganta ayay 60 siyaado ka yihiin 62 bilood ee dhimanayd bay marka buuxinayaan
haddii aad kaba soo qaad maalan ramadaan 6 beri baa lagaaga lahaa 6dii beri ee lagaaga lahaa baad soontay ood u niyootay qalle iyo sunno u wada niyootay bil umaad markaa soontay weli 6 beri baa kuu sii dhiman si aad u noqoto ruux sanadkoo dhan soomay markii lagugu dhufto 10 lagugu dhufto xasanadii aad la timid sidaas daradeed sida saxda waxa weeye qallihii lagugu lahaa ramadaankana gooni u qallee shawaalkana 6 beri ka soon sidaas waxaad noqonaysaa bil kaamila inaad soontay oo ramadaana oo 10 bilood u dhiganta iyo 6 beri oo sunna ah oo shawaal ah oo u dhiganta 2 bilood sidaas waxaad ku soontay markaa sanad kaamil ajirkii sanad kaamil soonkiisa ayaad sidaa ku leedahay su'aasha labaad maay sheekh waxa weeyaan su'aashii labaad wadaadkayga oo yidhi gabadhnimo kugumaanan guursanin waxuuna i dhahayaa bay tiri mar aan u dhalay cunug kadib dagaalkanaga cabaar buu socday haddana raalli ah uu yidhi wuu i soo celiyey diintu maxay ka qabtaa ninkaas dhimalati haddaad heshiiseen alxamdulilah ما في مشكلة سؤال حigta sheekh gabadhnimo kuguma guursanin waa nooc durida waay بمعنى waxa weeye ama waxay noqon kartaa nin baa iiga ka horeeyay ama waxay noqon kartaa xumaan baad samaysay haday ujeedadiisu tahay xumaan baad samaysay marka waa qadaf oo qadafkuna waa midka Ilaahay ku sheegay ninku hadduu xaaskiisa qadfo oo xumaan ku qadfo waa in way iska cafin kartaa iyadoo way isaga aamusi kartaa xarigii ka dhaxeeyay iyo guurkii waxba noqon maayo laakiin khalad buu ka galay khaladkaasi haddii maxkamad uu tago ama ay maxkamad tagto markaasi way isu dhaaranayaan 5 dhaarood buu mari iyaduna 5 dhaarood bay mari kadibna waa la kala eri haddayna maxkamad tagin oo iska heshiiyaan oo iska saamaxdana way heli kartaa arigu marka wax weeye maadaama hadda maxkamad sharciyo qaada xukunka ayna jirin iyagiina ayna maxkamadba u tagin ninkaasi hadduu tuhmo ah gabadhan inay xumaan samaysay uu ku tuhmay ama uu hadalkiisu sidaa yahay waa qadafkaasina waa dambi weyn ayadu hadday saamaxdo xagga alle dambi baa weli ka jira waa inuu dambi dhaaf alla weydiisto waa hadduu ujeeddada hadalka ula jeeday waay laakiin wada joogidoodii iyo xarigoodii iyo isqabidoodii waxba noqon mayso xataa hadduu ku yidhaahdo si toos xaaskiisa xumaan baad samaysay ama waad zinaysata hadduu ku dhaho xarigu ma go'ayo xarigu sidaa kuma go'ayo weli way isqabaan laakiin ama waa in shareeca ay xukunto la garaaco ama waa in haddii caddayn la helo ama waa in ay markaasi dhaarahaas maraan hadday iswada joogaanoo aynan maxkamadba aadinoo iska cafidana wuu heli karaa laakiin laba gooraba inuu toobad keeno oo ilaahay dambi dhaaf weydiisto weeye hadduusan wax caddayna jirin wallahu aclam maamo weyn baa waxay leedahay waxaan ahayn 4 bahood marka waalidku wuxuu ka dhintay guryo badan hal baa wuxuu naga ahaa bah gooni ah marka kuwii kale waxay dhaheen bahiblaan ku raacinay guryahana lama qaadanaysid diintu maxay ka qabtaa qofka bahdaas lagu raaciyay la leeyahay bay leedahay mas'ala dhaxalka sidiisaba shareecada qaybisa ruuxu markay tii ilaahay u timaado uu geeriyoodo xoolaha meesha uu ka tegay shareecada u talisa shareecaduna cid walba wuxuu leeyahay way garanaysaa iyada dadka kala saari bah walba waxay leedahay shakhsi kasta wuxuu leeyahay bah loo qaybin maayo laakiin shakhsi baa loo qaybinaya xaasku maxay leedahay gabadhu maxay leedahay wiilku muxuu leeyahay waalidku muxuu leeyahay marka ilmana sidiisaba waalidku dhalay qaab uu dhaxalka uga qadi karo ma jiro ama bah keligii ha ahaado ama bah kale ha badnaadaan marba hadduu aabba u yahay ama hooyo u tahay ruuxan dhintay oo ilmihii yahay marna ma qadi karo
waxa uu qaadanaya ha yaraado ha badnaado laakiin laba gooraba xaqiisa waa leeyahay sidaas daraaddeed waa khalad weyn waalidku markuu geeriyoonayo in uu tasarrufo maalkii uu eexasho sameeyo waa qalad waxaa qalad labaada xoolihii uu ka tegey inay bahuhu uu ka tegay dadku ka tegay ay kala boobaan oo ay shareecada ay ku kala bixi waayaan oo ay bahbadsato ama qolo badsato ama qolo kale ay ku xadgudubto ayadana waa qalad meydkii dhintayna uma roona idinkana idinma roona wixii laga tegay waa inay shareecadu qaybiso culimada loo keeno la idin kala saaro ruux walbana xaqiisa iyo wixiisa la siiyo wallahu a'lam su-aasha kale waxaa weeyaan sheekh gabadh waxay tiri ninkaygu wuxuu yidhi mas-uul kaama ihi ma waxay ka dhigan tahay fureen mise mas-uul kaama isi kale weeyaan gabadh kalena waxay leedahay xoolaha social mediaha naga soo galo albaa mise waa xaaraam diintu maxay ka qabtaa ninka hadduu yidhaahdo xaaskiisa mas-uul kaama ihi waxay u baahan tahay in la weydiiyo maxaa ka wadaa marba haddii xadhiggii xidhan yahay oo ay xaas tahay xuquuqdii iyada uu ku lahaana ay gudanayso mas-uul wuu ka yahay baryana ma aha inuu mas-uul ka ahaado waajibkii lagu lahaa waa inuu guto masruufkeeda marashadeeda xuquuqdeeda gogasheeda gurigeeda mas-uuliyad baa ka saaran marka mas-uul kaama ihi muxuu ka wadaa in la weydiiyo waay hadduu ka wado waan ku furayna warku waa inuu caddeeyo haddii kaleeto oo weli xaaskiisii aad tahay xuquuqdii uu kugu lahaana aad gudanaysana mas-uuliyuu kaa yahay xuquuqdaadiina waad ku leedahay warkaasi marka war u baahan waaya in la caddaysto wuxuu ula jeeday iyo ujeeddada uu ka leeyahay su-aasha labaad social mediaha xoolaha laga helo gaar ahaan muxuu ahaayey janaladan muxuu ahaayey youtube-ka inta la samaysto baashii ahayd kadibna aad oggolaanayso in xayeysiin la mariyo janalkaaga sidaana wax lagu helayo markay ugu yar tahay shubha ku jirta haddii kale waa xaaraan sababtu waxay tahay kambaniga youtube-ka ah wuxuu wax kugu siinayo waa xayeysiinta maraysa janalkaaga maraysa waa xayeysiinta janalkaaga maraysana kulli ma wada fiicna khamraa lagu xayeysiin doofaar baa lagu xayeysiin wax qaawan baa lagu xayeysiin balaayi sireenaysaa lagu xayeysiin khamaar baa lagu xayeysiin sidaas daraaddeed xayeysiinta lama kontarooli karo keliya adiga ma dooran kartid inta xalaasha ah sidaas daraaddeed waxyaalo badan oo khaldan baa lagu xayeysiinayaa janalkaaga xayeysiintaasi wax ka khaldan yahay baadna ku qaadanaysaa waxaad qaadanayso sidaas daraaddeed ama shubha ku jirta markay ugu yar tahay ama waa xaaraan cad maxaa yeele waxaad ku heshay baa khaldan oo waxa hadda aan sharaxnoon ka hadallaya wax marka wax laga raadsado ma aha ama muxuu ahaayey hunguri laga raadiyo ma aha maadaama ay yani wax way wax noocaasoo kale uu ku jiro sideedabana arsaaqda ilaahay baa qoray ruuxa arsaaqdiisa inta uu noolaanayo ilaahay baa qoray allaana damaanad qaaday nabigeennu wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam alle addoonka intuu nool yahay risqiisa waa qoray mana dhimanayo ilaa wixiisa uu dhammaysto ilaa wixii lagu qoray aad dhammaysato dhiman maysa sidaas daraaddeed buu nebigu sal alla alay wasallam ittaqu llaha wa ajmiluu fi talab alla ka baqo oo jidkaad wax ku raadsanaysaan qurxiya xalaasha ku gaabsada xaaraantana ka fogaada buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam wallahu aclam السلام عليكم شيخ واك سلام السلام عليكم waxaa jirta shiiqow wiil walaalkaya ayaa dhintay 3 cunug buu dhalay iswiidhan bay joogaan markay labada wiil ma xariirin jirin gabadhii buu akoonkii ku qoray oo xariirin jirto biil u soo diri jirtay lacagtii 2 sano ay akoon ku jirtaa wiilkii asaga ka weynaaba wuxuu yiri waa sadaqaynayna anna waxaa ir lama sadaqayn kara ciyaalkaas iska leh waa muxuu markay maxaan sameynaa telefoon ma qabanayaan
ma soo hadlayaan lacagtiina gabadhay ku qoranta. hawshaasi dee waxay ku xidhan tahay jidkee loo mari karaa iyo say suurtagal ku tahay akownka lacagtu ku jirto in dadkii lacagtan iska lahaaya carruurtii wada lahayd in ay wada yeeshaan oo laga dhaxaysiiyo oo loo qaybiyo siday suurtagal ku tahay. taas waxay u baahan tahay in la fiiriyo waaqica maxaa suuroobi kara, maxaa dowladda Sweden ka suuroobi kara, maxaa akownka ka suuroobi kara. waxaad muxuu ahay sharcan laga jawaabi karo ma aha. sharcan waxaa laga jawaabi karaa uun hantidaasi carruurta hadday isla leeyihiin mid gooniya ma qaadan karo. waa xaqii sidii uun cid walba xaqiisa loo siin lahaa in laga shaqeeyo oo aynan isdulmiyin. amaa jidkee loo mari karaa sidee suurtagal ku ah kama garan karno. waxay u baahan tahay inaad dadka muxuu ahay khibradda u leh la warsado iyo sida nidaamka waddanka ka jira iyo hawshaasi sida lagu xallin karo. wallahu aclam. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان والسلام يا خاصة الشيخ أمل. وحارة سؤال إنه كويديو إن قفك هدوقة وعلة عافيمات سؤالهان مركي وسولو كصباحه وسوء استجوده إن هذا إنه وحرك كديب هذا كي ماتو إن نجاسدي صلاة وقلا صلاة أسوأ كجر هذا النجاسة صار فيسو أسيغنا أوسن كنترول كرين صلاة مسي وذن كرام سواء إنه كبحة أو هذا ندب وسكسو ظاهرية. شيخ سؤال بنكويدين لها حالي أنا إنترنت كوحكة آخرية يا وحنا أركي صلاة laba mid waaye hadday tahay nijaasadu nijaas si joogta u socoto oo aan kala go'aynin markaas waxaad samaynaysaa waxaad ku xakamaynaysaa waxyaalahan lagu xidho nijaasada iska socoto ama always ha noqdo ama neebka ha noqdo ayaad ku xakamaynaysaa meeshii nijaasadu ka soo baxaysa kadibna waad iska cibaadaysani salaad walba waqtigeedaad u weysiisan ayadoo nijaasadii socotaadna ku tukan neeftii baa socota waa la mid waxaa la mida dumarka qaba dhiig furanka qaba ee mar walba dhiigu jiro marka daa'imul xadath baa la dhahaa cibaadada ma diidayo waa lala cibaadaysan waa lagu cibaadaysan laakiin waxaa la samaynayaa markaa aad tukanayso baad weysiisan waadna xidhiyo markaa waad xakamaynaysaa si uusan meeshuu ka soo baxayo u dhaafin oo dhinaca kale uusan ugu gudbin hadduu yahay wax marna go'aya marna soo baxaya hadduu yahayna waxay u baahan tahay marka uu kaa maqan yahayna inaad cibaadaysato marka uu kaa soo baxana markaasi inaad iska daahiriso hadduu yahay wax uun marmar imaanaya hadduu yahay waxaa intaa dheer marar badan waxaa dhacda dadka qaarkood waswaas buu ku noqdaa oo adoon waxbaba kaa soo bixin ayuu shaydaanku wuxuu ku leeyahay waxbaa kaa soo baxay waana dadka qaarkoodoo waxaad arkaysaa ruux baa wuxuu ku leeyahay sheekhow inta kale oo dhan waxba igama soo baxayaan laakiin markaan musqusha galo oo aan ka soo baxo oo aan soo istijaysto markaa kadib baa waxaan dareemayaa wax dareera oo iska socda oo waqtiyada kale ma kaa socdaa maya kaasoo kale marka waa waswaas waay shaydaankii baa wuxuu ku leeyahay waxbaa kaa soo baxay dadka qaarkood wuxuu ku leeyahay salaadda markaan galo unbay neeftu iga timaadaa oo xilliyada kalena wax neefa igama socoto marka ma aha wax neefoo kaa socota ma jira shaydaan baa dabada kaa afuufaya siduu nabigu tilmaamay sal alay wasalam midkiin markuu salaada galo ayuu dabada muxuu ahaay inay wax ka soo baxeen buu ka dhigayaa suu salaada kaaga waswaasiyo markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam salaada ha ka bixin ilaa aad ama neefta shanqadheeda maqasho ama urkeeda aad dareento ilaa aad hubsato wey macnaha marka haddii uu waswaaska noocaa yahay wuxuu u baahan yahay inaadan israacinin
oo aad xalli isdhihin oo aad isku daydo waswaaska noocaas oo kale inaad la dagaalanto oo aadan rumaysanin shaytaankana ilaahay ka nabad gasho aad ka magan gashood u baahan tahay marka waswaas iyo xaqiiqo jirta inaan kala saarnaan u baahannahay shaygu hadduu xaqiiqo jirta yahay joogtana yahay waa xukumka hore hadduu xaqiiqo yahay kala gogo'ayo waa xukumka labaad hadduu waswaas yahay aan xaqiiqo lahaynna inaad la dagaalanto u baahan yoodan rumaynin oo aad yacni waxa way shaytaanka iyo xeeladihiisa weeye aad ilaahay ka magan gasho wallahu aclam waxaan ku weydiinayaa ilaahay ku barakeeyo anoo internetka xalay wax ka akhriyaya waxaan arkay salaad la dhaho salaatu zawaal salaadaas miyay jirtaa sheekh waqtiga ugu habboon ee la tukan karaa haddii jirto waa waqtigee jazaaka allahu khayra waqtiga zawaalka waa waqtiga qoraxdu ay kala wareegayso oo samada bartamaheeda ku aadan tahay waana waqtiga taqriiban salaada duhurka marka la aadaamayo qiyaastii 10 daqiiqo ka hor muddada iyada ah waa xilliga ay samadu bartamaheeda ay qoraxdu ku aadan tahay xilliga wuxuu ka mid yahay xilligaha salaad sunnah in la tukado la reebay oo karaaha ku jirta culimada qaarnood oo xaraam bay leeyihiin xilligaas iyo xilliga qoraxdu sii dhacayso iyo xilliga qoraxdu soo baxayso saddexda xilliba nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ha tukanina salaadaha la diiday waa salaadaha sunnada ah oo marka aan sabab lahayn oo la yiraahdo sunanka mutlaqa marka la tukan maayo hadday salaadu sabab leedahay مثلا duhurkii ka hor uu yahay oo kale salaadii ka horeysay raatibadii duhurka ka horeysay salaada duhurka marka sabab bay leedahay hadaad masaajidka shoo kale oo tukanaysa tahiyatul masjidka sabab bay leedahay haddii janaaso lagu tukanayo sabab bay leedahay laakiin salaad sabab la'aan oo iska cibaadaysan iska tukanayso waqtiyada iyada lama tukado wallahu a'lam بسم الله waxaan weydiin lahaa sheekha aabba ayaa wuxuu qabay xaasas badan ilaa 4 baan ahayn bahood marka waxaa jirtay bax oo dumaal ee oo adeerkay ka dhintay oo ilmo hore haysatay markaas aabbana ilmo u dhashay marka aabba wuxuu lahaa dhul weyn oo asaga uu mas'uul ka ahaa kor ahaan marka qayb ayaa wuxuu dhihi jiray yar oo hal boos ah wuxuu dhihi jiray maamadan iyo ilmahan agoonta leh ayuu markii hore dhihi jiray kadib wiilal badan oo uu dhalay oo dad waaweynana meelaha way la degnaayeen markaas marka maamadii way xanuunsatay way dhimatay aabba ka dambeeyay marka aabba aniga iyo wiil ayaa haynay markuu dhimanayay wuxuu nagu yiri markaan waxyaali weydiinay oo dardaarmayay dhulka kulliga aniga iska leh markaan saas dhahay jirayna maamadan anaa qabay dhulka xoolihii lagu gadayna aniga lahaa waxaan ka baqayay inay kuwa waaweyn ka dhacaan kuwa yaryarka ah sidaas darteed baan saas u dhahayay marka dhulkaas aniga iska lahaa buu aabba nagu la dardaarmay marka anaga dardaarankiis waa soo qaadnay waa imaanay bahihii dhan baan kulminay si oo calaa qof wax looma dhaxlin si ay ku wada qanacsan yihiin bax kaste waa la keenay qaybtaas qaata idinkana qaybtaas qaata saas wax lagu kala qaybiyay marka wiilkii ilmihii adeer dhalay iyo gabdhihii isku hooyada ahaa waxaa la isla siiyay dhulkii asaga ahaa maadaama uu ilmaha u saas dhihi jiray duqa caruurta asagana uu yiri dhulka anaa iska lahaa baa ahaan ayaa la isu raaciyay ayagii oo anaga wax adeer dhalayba kamaana soo qaadan iyaga dhan waa la isku daray qaybihii anaga kala aan kala qaadanay qayb leeg ayaa la isku siiyay marka xoogaa ayagii qaar ka mid ah ayaa marmar hadlaan oo dhahaan saan anaga ma ahayn hooyadeen baa wax iska lahayd camal marka si fiican oo hadda ay kugu dhagan yihiin ma ahan oo dad hadda banaanka taagan oo haysta ma aha laakiin xoogaa aniga shakhsiyan baa qalbigayga wax ku yara jiraan in ay arrintaas xoogaa walwal igu yar haysaa maadaama maamadin ay saas tiri aabbana uu aniga saas nugula dardaarmay ilmihiina qaar ka mid ay hadlayaan marka maxaa xukunkaas muxuu noqonayaa ma lee sheekh jazakallahu khayral jazaa adayga hadduu ka dambeeyey
maamada ka dambeeyey oo isagu dhulkii uu markii hore xarrabaabay uu yidhi ma jiro anaa iska leh markay ugu yarta waxay noqon kartaa wuxuu bixiye oo ka noqday waana masale khilaafiya ruuxu wuxuu bixiye ma ka noqon karaa yacni sharcan waa xaaraan laakiin hadduu ka noqdo dib ma u mulkinaya taasaa waxay tahay masale hadal badani ku jiro si ay tid noqotoba haddii uu maamada dhulka uu ku wareejiyey intuu noolaa milkiyadana iyadaa iskale iyo gabdhaheeda hadduusan ku wareejinin oo uu yidhi uun waan isaga sasabayaa ama maslaxo kalean fiirinayayna warkiisaa la qaadan hadduu ka dambeeyeyna dardaaran ma aha oo dardaaran wuxuu noqdaa markaan dhinto saa iyo saa ha la yeelo dardaaranku geeriduu ka dambeeyaa ruuxa wax loo dardaarmayana waa inuu ka dambeeyo ka dardaarmaya sidaas daraaddeed dardaaran ma aha ee waa siismadii intuu noolaa hadduu yidhi ma jirtana dhulkiisa isagaa iska leh isagoo leh iyuu ka dhintay kadibna waa la dhaxli dadka dhaxal kale baa yaa dhaxlaya masalada labaad ruuxu hadduu dhaxalka wax ku leeyahay wax looma dardaarmi karo xaas bay ahayd xoolaha dhaxalkay wax ku lahayd sidaas daraaddeed iyadoo dhaxalka wax ku leh dardaaran sax maaha waxaa wax loo dardaarmaa dadka aan dhaxalka wax ugu lahayn maalan gabdhaha ay dhashay oo iyadoo wadata wuu ku dumaalay gabdhahaasi dhaxalka duqa waxba kuma laha ayagoo kale waxbuu u dardaarmi karaa leanna dhaxalkiisa waxba kuma laha laakiin iyadu maadaama ay xaaskiisa ahayd dhaxalkay wax ku leedahay ruux dhaxalka wax kulana waxba looma dardaarmi karo haddii loo dardaarmana shareecadu way burinaysaa laa wasiyata liwaaris waay ruux dhaxalka wax ku leh dardaaran male buu rasuulku sal alla alay wasalam marka masaladu sidaas weeye odaygu hadduu yidhi wixii aan bixiyey ma jiro oo dhulkiisii la noqday sidaana kaga dhintay dadkiisa dhaxal kale unbaa dhaxli inta dhaxalka ku lahayd unbaa dhaxlaysa insha allahu tacaala hadalkii hore uu yidhi ma jirana dee isagii allihiisa sidaysaa loo qaadanayaa wallahu aclam su-aasha ku xigta salaadii baa joogta insha allah saddex su-aalood oo isku nooca baan hal mar sheegaynaa ustaadaa waxay leedahay aabahay 23 sano ka hor buu dhintay xooluu ka tegay badh waa la dhaxlay badhna lama dhaxlin oo dadka qaar baa iskula hadhay marka dhaxalkaa taagan muxuu yahay waxaa kale oo maama ay leedahay iyaduna odayganagii buu dhintay kol hore laba bah baan ahayn waxaa mas-uul naga oo qaaday lacagihii uu ka dhintay hantidii adeerkood caruurta omana ogola inay aad u isticmaalaan mar walban dhahnana dhaxalsiina wuxuu leeyahay xoolahaad fakinaysaan dadkiina way waaweynaadeen oo wiilashii shaqo abuur bay u baahan yihiin odaygaas asagana xoolaha ku dhagan si hal mar sheekha hal mar aan u fasaxno su-aasha saddexaad waxay leedahay gabadh Canada ka soo hadlaysa beeshin baan rabay inaan ka shaqeeyo dadka waaweyn ee la xanaaneeyo rag iyo dumarna way leeyihiin marka ninka odayga 90 jirka ah ee la dhaqayo la dhigayo xoolaha ka soo baxaya ma xalaal baa mise waa xaaraan su-aasha saddexaad ma maqlin laakiin su-aalooda kale su-aasha ku saabsan caruurtu hadday qaan gaadhaan xoolahoodana maamulan karaan waa in hantidooda lagu wareejiyo suuratu nisaa ilaahay wuxuu ku sheegay xoolaha agoonta u haya gacanta ugu haya u ilaaliya markay gaadhaan rushdiga intay qaan gaadhaan haddana xoolahooda ka adkaan karaan oo maamulan karaan xoolahooda ku wareejiya markhaatiyana u sameeya wax marka loo sii haysta ma jiro allahuma hadduu ka baqayo inay xoolaha ku ciyaaraan dad mas-uulana ayna weli noqonin oo isku filan oo xoolahooda ku filan marka wuu ka hayn karaa wuu hayn karaa laakiin hadday gaadheen oo maamuli karaan oo aqoonteedii yani wax dadaalkeedii ay leeyihiin kartideedii xoolihiina ayna ku ciyaaraynin xoolahooda inuu ku wareejiyo way markaasi ay ku shaqaystaan oo iyagu ay maamushaan oo ay hormarsadaan way su-aasha xigta
dadka beeshinka ah ama duqayda ah in laga shaqeeyo waxna laga helo wixii laga helo maxalaal baa jawaabtu waxay tahay haddii waxa aad ka shaqaynayso adoo dumara ay rag yihiin waxaad ka heshaa waa khalad maayeel waxaad ka shaqaynayso waa rag ajnabi ah cawradoodii shidhkoodii waxoodii baad gacanta kula jirtaa marmarka qaarkood waa gaalo raashiin baad u karinaysaa doofaar baad u karinaysaa xaaraan baad siinaysaa marka haddayse yihiin adoo dumara inaad dumar ka shaqaynayso oo nadaafadoodii iyo hagaajintoodii aad ka shaqaynayso isla markaana aadan doofaar iyo wax xaaraanaya ugu kaalmaynaynin markaas way dhaantaa marka way dhaantaayo dumarka dhexdooda yacni waxa weeye cawradooda iyo is-araggooda iyo iyada lafteedu qaybo ka mida inay is-arkaani inay daruura keento mooye lama ogola laakiin way kala fududahay markayse da' noqdaan oo dadku xanaano u baahdaan in la xanaaneeyo oo gacanta lagu hayo oo haddii cid haysa la waayo in la hayo dumarku dumar hayaan raggu rag hayaan markaasi waxa weeyaan wax dhiba ma laha in wax lagu qaato oo ujuuro lagu qaatona dhib ma laha laakiin anoo dumaraan rag ka shaqaynaya yaa ilaahu muu 90 jir ahaado 100 jir ahaado ilaah maskaxdiisu may maqnaato waxaa loogu dalagalay kaasoo kale ama inay rag u adeegaan ama qaraabadiisii inay u adeegaan laakiin gaala qaraabo ma leh gaala qaraabo ma leh innaga ilaahay wuxuu inoogu nicmeeyey dadka noocaasoo kale ehelkoodaa haya carruurtoodii baa haysa xaaskiisii baa haysa dadkiisii baa haysa uma baahna in dad ajnabiya loo dhiibo oon ka naxaynin marka arrinkaasi waa arrin aan fiicnayn waay haddana waa gaalo waay wayba isdhaantahay gaalo iyo qashinkeeda iyo saxaradooda iyo waxaasi meel wax laga raadiya maaha risiqa ilaahay baa ballaadhane meeshaa meel wax laga doonto maaha sidaas daraaddeed ruuxa muslimka waa shariif ruuxa muslimka waa casiis karaam buu leeyahy sharaf buu leeyahy adoo sharaf loo ilaahay ku karaameeyey arsaaqdu inay halkaa kaa gasho sax maaha arsaaqdan ilaahay baa qoray si qurux badan oo wanaagsan ku raadsada ilaahay baa idin siinaye innagoon gaalana aqoonin maraykanna aqoonin yurubna aqoonin kuwa dabada laga dhaqayana aan aqoonin baan noolayn waana noolaan doonaa meel kastaa lagu noolay marka xalaasha miirta waxyaalaha noocaas oo kale ah ruuxa muslimka cizigiisa iyo sharaftiisana waa loo diidan yahay ragga ajaanibteed gacmaha la gelaysana waa lagu diidan yahay sharcan marka ma bannaana wallahu aclam su-aasha saddexaad maxay ya dad xoolo isku leh oon dhaxlin laakiin raalli bay isaga yihiin inay saas xoolo isku leeyihiin mayna dhaxlin laakiin waa walaalaha raalli iskaga dhib ma leh hadday raalli isaga noqdaan dad qaangaadhana ay yihiin dhib ma laha laakiin waa inay qaangaadh yihiin haddayna qaangaadh ahayn carruurta yarteen qaangaadhin xoolahooda iyaguna ma bixin karaan cidda gacanta ku haysana ma bixin karto waa agoon markaa haddaad qaangaadheen oo dad waaweyn wada tihiin waad isa siin kartaan raalli baad isaga noqon kartaan waad isu cafin kartaan wax dhiba male oo muxuu ahaay idinkaa tasarufka iska leh wallahu aclam salaaddii maqribkaa joogtaan u balan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu